rijaasha ku tumanaya ilmaha xaqooda oo ilmaha ay dhaleen dayacaya haween masaakiin ducaafo ah ku furaya haddana dib dambe aan loogu laaban miyaysan ogeyn allah subxaanahu wa tacaala inuu qiyaamaha xisaabin doono sida u tilmaamay sala allahu calayh wasalam xadiiskii muslim bukhaari ee soo wasaareen wa rajulun raaci fii ahli wa mas-uulu can raciyati ninku waa raaci oo waxbaa loo dhiibay oo wa mas-uul weeyaan wixii loo dhiibaa waxa laga weydiinayaa ninka waxaa loo dhiibay ehelkiisa ilmihiisa weeyaan waxaana laga weydiin qiyaamaha haye inta islaamaha lagu furo hadhow la yidhaha waxaa ii joogta ilma intaan la eg haye hal habeen aan beris loo geynin ilmaha sidaa ah oo xaqooda dayacayo war allah subxaanahu wa tacaala ka xishooda oo qiyaamaha waa la isweydiinayaa wuxuu rasuulka sala allahu calayh wasalam odhanayaa maa min cabdin yastarciihi allahu raciyatan yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashu liracyatin ilaa xarama allahu calayh aljanna haye axadka waxaa weeye xaq inta xuquuq loo dhiibo oo xil loo dhiibo xilkiisa ku cayaaro ku tunta haye oo waxa waa sidaa daa'inta ilaa geeri ay uga timaado axadkaasu janno allah ka xaaraam ah odayaasha marka aad maqli oo lagu odhan laba cudub buu ku furay oo laba kale ku furay oo laba kale ku furay oo la arkaya ilmo 20 ka badan hal marna xaqooda aan la siinin waxaa ka dhalanay janno alla in lagu waayo waxaan marka odhan lahaa odayaasha ku tumanaya xuquuqda ilmahooda allah subxaanahu wa tacaala uga baqa oo waxaad ogaataa waa laydin xisaabinayaa oo rabbi ayaa laydin horgeynaya subxaanahu wa tacaala maa minkum min axadin ilaa sayukallimu rabba walaysa baynahu wa bayna allahi turjuman axad kasto adinka idinka mid ah allaba hortagaya asaga allahna wax u turjumaya ma lahan haye odayaashiinanow oo waxa weeye odayaashiinan ku tumanaya ilmaha xaqooda ku tumanaya haddana ilmihii wax xaqa aan la siin haddana magacoodii marka la yidhaayo maxad dhashay la odhan haddana lasoo hadal qaadayo war ilaahay uga baqa subxaanahu wa tacaala oo waxaad ogaataan maanta waa adduuniyo beri waa aakhiro waxaana waa lagu weydiin wuxuuna rasuulka sala allahu calay wasalam odhanayay axad waxaa dembi ugu filan inuu waxaa weeyaan xabis dadka ou geliyey ee quudkiisa owla inuu xabiso oo yacni quudkii u diido dadka biilka ku leh oo waxa weeyaan biili diido dembi ka ayaa ugu filan sida u tilmaamaya xadiiskii muslim abi daawuud iyo rijaal kale ay soo saareen kafaa biimri'in ithman an yaxbisa man yamliku quutu haye axad dembi waxa ugu filan axadku inuu u diido qofkii quudka loo saaray ilmihii rabbi xasa wajalla oo xaq ugu dhiibay inay xaqoodii aad diiddo waxaa ka dhalanaya allah inuu ku celo subxaana wa tacaala dembi haddiiba lagu waayo xataa kale inta lagugu helo naar iyada kugu filan war allah ka baqa subxaana wa tacaala oo waxa weeyaan gabdhaha muslimaadka ahna yani xaqooda lagu tumanin oo waxaad maqlin in la odhanayo oo weliba 30 aan gaarin haddana la odhanayo waxuu soo furo 30 dumar ah haye taa maxaa ka dhalan 30ka dumarka ah awlaada lagu furay waxa la siinayaa ma lahanba haye ilaa waxa meel qarba laga sheegaba gabadha la furo xaq ma lahan oo ilmaha lagu furo waxba laguma siiyo haye markaas waxaa la odhanaya ilmo aan agoonna ah ilaa habartii u bala arkaya bas odan lama arko sidaa waxaa ka imaanaya bulshadu dhexdooda inay ka timaan colaad tiro badan oo su-aasha la isoo weydiiyey in badan bay ka mid tahayba waxaan marka odhan lahaa gabdhaha su-aasha wata ee ku saabsan odagu nama soo korin gabdhaha su-aasha wata ee ku saabsan odagu nama soo korin maanta waxaan naqaan gaaro xaqiisa waxa weeye xaq miyuu nagu leeyahay haa warkiyo gaaban xaq buu inku leeyahay maadaama uu xaqiinii dayacay adigu kiisa ha dhuminina waxaan marka odhan lahaa wanaajiya ile waxa weeye wa aabihiin oo waad ku abtirsanaysaan marka xaqiisa adigu ilaaliya